diyaabkii ugu weynaa xukunkii Naaziga, ninkii casharka lama ilaawaanka ka dhigay dagaalkii labaad ee adduunka, ninkii wadamo badan oo Yurub ka tirsan cagta mariyay una bedelay qubuuro, ninkii Yuhuudda jaximada dhadhansiiyay heer uu gaadhay inuu kala baqaylo rasaasta taa bedelkeedana uu ku dili jiray sidoo ugu shaqeynaya nafta uga dhici jirtay ama intuu meel isugu keeno uu ku tijaabin jiray hadba hubka ay wadankiisu soo saari jireen kuwaasoo ahaa hubabka kimikaalka ah. wuxuu gaarsiiyay Ruushka, Poland iyo Yuhuudda heer ay ku qarwaan kuna naanaysan Ilaahay dhimashada. salaamullaahi calaykum, barkulankeenan waa samawade. barnaamijkeena maanta wuxuu daaran yahay dhinaca dagaalkii labaad ee adduunka iyo ninkii ugu tutunta roonaa ee la odhan jiray Henry Himmler. haddii wax macluumaad uun ka faa'iiday usulka taabo mahadsanid. Henry Himmler wuxuu ku dhashay gobolka Bavaria caasimadiisa Munich, German Empire sanadii 7 Oktoobar 1900. wuxuu la dhashay 2 wiil oo soo ku saddex ahaa. wuxuu ahaa raggii ugu awoodda badnaa ee xukunka Naaziga soo mara. wuxuuna ahaa raggii dejiyay ama qaybta libaax ka qaatay xasuuqii Holocaust ee loo geystay Yuhuudi deganaa dhulweyni waqtigaas uu haystay Jarmalku iyo wadamadii Jarmalku qabsaday ee ka mid ka ahaayeen Poland iyo Ruushku. Himmler wuxuu ahaa ciidankii kaydka ahaa waqtigii dagaalkii koowaad ee adduunku socday, isagoo aad u daayar, wuxuuna waqtigaas ku jiray tababar ciidan. dabayaaqadii dagaalkii koowaad ee adduunka waxa uu socday jaamacad taasoo uu ka baranayay culunta beeraha ee magaalada Munich. markii uu jaamacadda ka soo baxay wuxuu ku midoobay ama uu ka qayb noqday xisbigii waqtiga wadanka haystay ee Naaziga. damicii Jarmalka iyo dhulballaarsigii dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu ahaa ninkii soo saaray howlgalkii magaciisa loogu magac daray ee ahaa Himmler Operation. howlgalkaas oo uu ku qabsaday Poland isagoo ciidanka Jarmalka xeelad dagaal u dhigay, taasoo ah inay ku labistaan dirayska ciidanka Poland kadibna dhex galaan isla ciidanka Poland, waxayna ku dubteen oo ay dhegta dhiigga u dareen ciidankii Poland bartaasi wadankaas ku qabsadeen. isla dagaalka kaliya ayaa waxa ku dhintay 65,000 oo qof ayuu ku laayay ninkani isla dagaalka qora weeyaan, haddama aha meel kale. waxa uu mas'uul ka ahaa oo horkacayay dhisidda xeryaha extermination campka ee loogu talagalay Yuhuudda, ciidankii casa ee Ruushka iyo Boloniiska. walow ay ku jireen xeryahaasi waxa la wixii ka soo horjeeda sareynta Jarmalka. xasuuqyadii Holocaust, dadkii lagu xasuuqay iyo dadkii xeryaha extermination campka ku jiray iyo dadkii la dilay dhammaantood waxa dusha loo saaraa isaga, maadaama uu ahaa hogaankii ugu sarreeyay ciidanka. tirada dadka amarkiisa uu ku xasuuqay waxa lagu sheegaa 200,000 ilaa 500,000 oo Rumaani ah ama dadka la takoora ee ku nool guud ahaan Yurub ee loo yaqaano Gypsy. 6 milyan oo Yuhuud ah guud ahaan isku darkooda waxa la gaarsiiyay ilaa 11 milyan, maadaama ay qiyaastay oo tiro rasmi la haynin, sababtoo ah dadka ugu badan oo xasuuqay xataa waxa ku jira ama dadkii ugu faraha badnaayo xasuuqay uu laayay waxa weeyaan Yurubtan kale ee Poland iyo Ruushka iyo Czech Republic oo waqtiga Czechoslovakia la isku dhihi jiray. bal dib aynu ugu laabano ka takhalusidii diimaha iyo waxa uu ka aaminsanaa. sanadkii 1924 wuxuu u diga rogtay mulxidnimo, isagoo diinta Kaatooliga ku eedeeyay inay tahay mid aan jaan qaadi karin ilbaaxnimada iyo xukuumaddiisa. wuxuuna awoodiisa isugu geeyay ka takhalusida diimaha, isagoo ku bedelay oo diin uga dhigay wax loogu yeero Germanic, taasoo ahayd dhaqankii hore ee Jarmalka waqtina diin u ahaan jirtay Masiixiga hortii ama before Christ. wuxuuna ku eedeeyay inay tacadiyo galmo iyo hanti shacab oo si diimaysan loo qaato ay hormuud u tahay kaniisadu. wuxuuna ka soo horjeedsaday fikradda diin kasta ay aaminsan tahay ee ah bini'aadanimo, isagoo bini'aadamka u kala saaray human iyo subhuman. horaantii 1937 wuxuu dardargeliyay dabarjaridda diimaha oo dhan, isagoo u xil saaray Professor Eckhard oo bare jaamacadeed ka ahaa Bonn. dhinaca noloshiisa gaarka ah Himmler waxa lagu sheegaa nin aamusan inuu ahaa, laakiin manaxaanimo iyo nacayb ka buuxo. nacaybkaas uu qabay Yuhuudi la deganeed wadankiisa iyo dad kasta ajaanibo Jarmalka deganaa. wuxuu waxbarasho u tagay oo luqadda naxwaha magaalo la yiraahdo Landshut oo ku taala isla gobolka Bavaria.
isla iskuulka uu tegay waxaa maamul ku-xigeen ka ahaa aabihii Joseph Gebhard. isla waqtiyadii dugsiga sare oo ka soo baxay waxaa bilow ahaa ama socday dagaalkii koowaad ee adduunka, wuxuuna ku soo laabtay Munshin bartaasuu jaamacad ka galay. jaamacadaasuu ka baran jiray culunta beeraha. 1928 wuxuu nolosha kula midoobay u guursaday Margarita, taasoo ahayd neers ka shaqayn jirtay dhakhtar Kilyaanti uu ahaa. waxayna isku dhaleen gabadh taas ay ugu magac dareen Gudrun oo waqti dhow toola dhimatay. waxaan malaynayaa May 2018 inay dhimatay iyadoo 88 jir ah. mashadeedii koor wareysyo laga qaaday ayaa waxay ku sheegtay inuu aabaheed waxyaabo uu sameeyay oo dhan una khalad ku lahayn, yacni way difaacaysay oo waxay raalli kaga ahay dambiyada uu sameeyay. waxayna sheegtay inuuna aabaheed isdilin oo la dilay, maadaama aabaheed sida lagu sheego caadiyan uu isdilay. oo Naazigu waxay isku dili jireen marka la qabto waxay isticmaali jireen kiniin ay ilkaha ku haysan jireen. kiniiniga capsulkaas yar oo sun ka samaysnaa ay marka la qabtaba ay qaniini jireen say ciidamada kale ayna u leyn ama sir looga soo saarin. haddaba islaantan ayaa waqtiyadii imika ay nooleed mar waxay ahayd sirdoonka Jarmalkii galbeed ayuu shaqayn jirtay iyadoo magaceega iska bedeshay. markaynu intaa kaga nimaadno gabadhiisa, maadaama iyadu ay u baahan tahay barnaamij gaar in laga sameeyo oo taariikh gaara leedahay, aynu soo laabano Heinrich Himmler. xilalkii ugu sarreeyay xukunka Naaziga ka soo qabtay waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha, taliyaha ciidanka booliska, taliyaha ciidanka sirdoonka ee Gestapo, iyo guud ahaan jagadii ugu sarreysay ee loo yaqaanay Reichsführer. qabashadiisii iyo dhimashadiisii markii ay isbahaysigii galbeedka ee ciidankii Ruushku qabsadeen guud ahaan Jarmalka oo dhan, waxa uu isku dayay Himmler isagii saraakiil kaloo la socoto walow khilaaf ku kala dhex jiray saraakiisha oo iyaga laftirkooda mid walba dhinac u socday. laakiin isaga iyo kuwii la socday oo laba ahaa waxay samaysteen aqoonsiyo bug ah oo been abuur in iskaga bedeleen magaca, waxayna ka baxeen isla magaalo ku taala gobolka Schleswig-Holstein oo la yiraahdo Friedrichskoog iyo kuwa sii jeeda Neuhaus. waxaa qabtay ciidankii Ruushka 2 cisho ka bacdi markay waxba ka garan waayeen ayaa waxay u soo bedeleen ama u soo gudbiyeen ciidankii Ingiriiska oo isaguna gobolka ku sugnaa. baaritaan dheer ka bacdi ciidankii Ingiriiska wuxuu aqoonsaday inuu ninkan yahay saaxiibkii dhabta ah Himmler, ninkii malaayiinta qof laayay. waxayna baaritaankii ka bacdi ay u gudbiyeen dhakhtar si loo hubiyo caafimaadkiisa iyo dhiigiisa ama baaritaan oo genetic ahaan lagu sameeyo. ka bacdi dhakhtarkii markii la geeyay wuxuu diiday inuu afka kala qaado. waxayna caan ku ahaayeen ciidamada Naaziga ama saraakiisha Naazigu inay afka ku aysan jireen dawo sun ah oo ilkaha ugu jiri jirtay. markay shaki dareemaan ama in la qabto ama in sir laga soo saarana ay qaniini jireen. ka bacdi markuu diiday inuu afka kala qaado ayaa wuxuu qaniinay kiniinkii ilkaha ugu jiray. daqiiqado ka bacdina bartii ay naftu kaga dhacday. hadaladiisii iyo khudbadiisii caanka ah waxaa ka mid ah dabargoynta iyo barakicinta Yuhuudda. markaan afka ka leenahay waa mid fudud, laakiin fulintu waa mid adag, sababtoo ah waxaan nahay 80 milyan oo Jarmal ah. mid kastoo inaga mid ahna tafiirtiisa Yuhuud ayaa ku jirta, ama hooyadii ha ahaato Yuhuud ama isaguba Yuhuud ha guursadee. meel kasta way ku jiraan. Yuhuuddu dowladday ka mid yihiin, baarlamaankeenay ku jiraan. ilaa intaanu dhexdeena iska sufaynayna guul ma gaadhayno. maalin kasta magaalo ayaa ololi oo guban. waa inaynu yeelanaa hal mabda oo wiilasheenu ku midaysan yihiin. waa inaynu daacad u ahaanaa cirdigeena qowmiga ah iyo dhiigeenna. waxba igama gelin dadka kale gubanaya Ruush, Jeeg ama Poland. dhiigeenna ka wada qaalisan. haddii loo baahdo waxaa soo qafaalanaynaa ubadkooga si aanu ugu barbaarno Jarmalnimo, iyagoo ku noolaanaya barwaaqo ama abaar hadba kan ku jirno, si aanan u dabargu'in. waxaan dadka kale uga baahannahay oo keliya waa inay addoommano noqdaan sida dhaqankeenu na faray. sidoo kale waxaan amar ku bixiyay in la laayo dumarkii caruurta, sababtoo ah haddii aan daayo dembi ayaan dareemayaa inaan ka galay ummadayda. haddii aan cafiyo ubadka subhumanka ah ama bini'aadanimada ka hooseeya ee cuqdada u qaba Jarmalka, waxaa laga yaabaa markay koraan inay jiilkayga dambe waxyeelo soo gaarsiiyaan. sidaa darteed waa inaan xataa dhallaanka laayaa. marnaba ma suuroobi doonto inaynu ka tagno jiil aargutaa. gebigood waanu dhammaynaynaa. maanaka daciifa, sideen ugu dhaafnaa ubadkeena dad cuqdad iyo nacayb ka buuxo.
waxay ahayd hawshii igu adkayd, waxay ahayd hawshii igu foosha xumayd iyo amarkii ugu xumaa ee la siiyo SS, amarkaas oo xal loogu helayo arrinka yuhuudda. Si fudud ayaan u odhan karaa haa, way fiicnayd inaan ka dabar jarno yuhuudda dhulkeenna. barnaamijkeeni intaasuu ku dhan yahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.